بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ساركتي وناكسن كلهم وعن داودياشنا قيمها iyo qadarinta naga mudan oo meel walba oo koonka daafiisa dinaga daawanaysan ba ku soo dhawaada barnaamijka Wardoon TV-ga Somali Cable oo waqtiyadan oo kale maalin walba marka laga tago maalmaha Khamiista iyo Jimcaha si toos ah kaga daawataan muuqaalka caalamiga Somali Cable barnaamijka Wardoon waxaanu ku soo qaadanaa wararka warbixinada maalintaasi taagan iyo waliba waraysiyo xiiso leh oo ku qaadan dhigayno dhacdooyinka ku jaango'an nolosha Soomaalida xiisaana leh maanta waa 23 bisha Abriil sanada 2018 qodobareedada xiisaha leh barnaamijka Wardoon hadii alla weyn laga helo aad ku daawan doontaan mudada hawada uu ka baxay waxa ka mid noqon doona ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta ku wada dagaalamay meel aan ka fogeen xerada General Gordon ee magaalada Muqdisho oo horay gacanta ay ugu hayeen dawladda Imaaraadka Carabta oo loo dhawaanay isaga baxeen hadaba faahfaahin iyo waliba wararkii ugu dambeeyay qorsheya dagaalkaas iyo barnaamijka ku eegi doona qodobada kale maanta idin haya waxa ka mid noqon doona waxa sii kordhay musharaxiinta isku soo sharaxaya xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayadoo wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo xilka isku soo sharaxay xilalkii wasiirnimo ee ka hayeen xukuumadda iska casileen wasiir ku-xigeenkii wasaaradda boostada isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya Ibraahim Yaro Isxaaq ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo maanta warbaahinta shir jaraa'id Muqdisho ugu qabtay ayaa shaaciyay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya shirka jaraa'id ee musharax Ibraahim Yaro barnaamijka ayaad ku daawan doontaan isagoo ka warbixinay waxyaabaha u qorsheysan inuu qabto hadii baarlamaanka ay u doortaan gudoomiyaha iyo waliba sababaha ka dambeeyay xilkani inuu isku soo taago qodobada kale barnaamijka maanta aan idinku hayo waxa ka mid noqon doona halka ay ku dambeeyay xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay arrimaha la xiriira xildhibaan ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Xasan Idris Maxamed Gani ayaa barnaamijka marti waa ilana falanqeyn doona arintaasi dhanka kale maamulka gobolka Banaadir maanta howlada nadaafada ay ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka Muqdisho gudoomiyaha gobolka ayaa ka qayb galay iyana barnaamijka ayaad ku eegi doontaan wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ka soo horjeesatay shir wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ay soo abaabushay dhawaan oo Muqdisho lagu soo afmeeray wasiirka warfaafinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ka hadlaya shirkaas iyo waliba waxyaabaha ay ugu soo horjeesteen barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobadaasi wixii kale nagu soo kordha ayaa mudada hawada barnaamijka Wardoon uu ka baxay khiyaaray aad daawan doontaan waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada soo saarista barnaamijka gacanta ka geystay farsamada iyo kaamirada waa Cabdiraxiin Xuseen Ceelaawe anigu Cabdullaahi Axmed Actoosh ayaa la socodsiinaya mar kale iyo barnaamijka Wardoon ee TV-ga Somali Cable saragti wanaagsan daawadayaal markana barnaamijka ayaan guda galeynaa qaybaha hore ee barnaamijka Wardoon waxa inoo soo socda warar xiiso leh oo ay kamid yihiin waxa sii kordhaya musharaxiinta isku soo taagaya qabashada xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya laakiin marka hore maanta dagaal saacado qaatay ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu ku dhexmaray meel aan ka fogeen xerada General Gordon ee magaalada Muqdisho xeradan oo ay ku sugnaayeen ciidamo u tababaray Imaaraadka dhawaana dawladda federaalka Soomaaliya ee la wareegtay ayaa waxa la sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya warar ay ku soo qaadeen saraakiisha ciidanka dawladda inuu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday faahfaahin inay ka bixiyaan arintani sidoo kale wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya inuu la xiriirnay ayaa sheegtay baaritaano in la sameyn doono kadibna warbaahinta loo soo bandhigi doono waxyaabaha dhaliyay dagaalkani dhawaan ay markii abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdullaahi Cali Canood uu la wareegay xerada General Gordon ay ku sugnaayeen ciidamo Soomaaliyeed oo tababaray dawladda Imaaraadka Carabta sidoo kale abaanduulaha ayaa la wareegay gaadiid dagaal oo dawladda Imaaraadka Carabta waa gaadiid dagaal oo ay lahaayeen ciidankan ay tababareysay dawladda Imaaraadka Carabta Imaaraadka iyo Soomaaliya ayaa dhawaan xiriirkooda meel xun gaaray iyadoo ciidamadii tababarka ka heli jiray dawladda Imaaraadka Carabta guud ahaan bay la wareegtay dawladda federaalka Soomaaliya saraakiisha ammaanka faahfaahin baaritaanka kadib warbaahinta ay la hadli doonaan wixii ku soo kordhana barnaamijyadeena iyo wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan dhanka kalena waxa sii kordhaya musharaxiinta isku soo taagaya qabashada xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya dhawaan ay ahayd markii xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay iska soo dhex saareen guddi ka kooban 15 xildhibaan oo ah guddiga qabanqaabada doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya guddiga oo shalay shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa shaaciyay in 30 bishan oo ku beegan maalinimada Isniinta ee soo socota
la qaban doono doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale 24ka iyo 5 waa maanta oo bish 23 ilaa 24 oo maalinta biritaha ku beeganaya socon doonta isdiiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya 24ka waa 25 ilaa 26 bishana waxaa loo qoondeeyay inay noqoto maalmaha hadal jeedinta musharaxiinta ay hortagi doonaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya 27 bishan ilaa 29 bishana guddiga ayaa gali doona isxog wareysi ku aadan u diyaar garowga maalinta doorashada ee dhacayso ku beegan 30 bishan oo ah maalinta Isniinta ah musharaxiin hore la ayaa isku soo sharaxay xilkaasi guddiga doorashada ayaa waxay ku dhawaaqeen in musharax haddii wasiir ka tirsan xukuumadda isku soo sharaxo qabashada kursiga gudoomiyaha baarlamaanka waajib ay tahay marka hore inuu iska casilo xilka wasiir ee ka haya xukuumadda Soomaaliya wasiiro dhowr ah ayaa saacadii la soo dhaafay isku sharax xilkaas iskana casilayay xilalkii wasiirnimo ay ka hayeen xukuumadda Soomaaliya waxa kamid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Ibraahim Yaro Isxaaq maanta ayuu shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay waxa uu sheegay inuu iska casilay xilkii wasiirnimo ku-xigeen ee xukuumaddu ka hayay waxaana tilmaamay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Ibraahim ayaa tilmaamay in markii uu la tashtay xildhibaano badan oo ka tirsan dawladda iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ay u soo baxday inuu isku soo sharaxo xilkaasi aynu daawano shirkii jaraa'id ee Xildhibaan Ibraahim الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد waxaan u soo istaagay inaan caddeeyo inaan u taaganahay qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo banaanaaday laguna tala jiro doorashadiisa in muxuu ahaa la qabto muddo dhow aniga waxaa la yiraahdaa Ibraahim Isaaq Yarow waxaan ka tirsanahay golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaan ka tirsanahay waxaan kaloo ka tirsanay golaha xukuumadda ayaan ka tirsanaa waxaan ahaa wasiir ku-xigeenka boostada iyo isgaarsiinta ayaan ahaa kaas oo muxuu ahaa aan iska casilay saaka iyadoo sababtuna ay tahay shuruudaha guddiga qabanqaabada doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ay muxuu ahaa ku jirtay in xildhibaanka u tartamaya uu xilka uu hayo xagga iska dhigo aniga waxaan u hoggaansamay dhammaan shuruudihii ay dejiyeen guddiga qabanqaabada doorashada baarlamaanka dhammaantoodna waan buuxiyey waxaana ku faraxsanahay in shuruudihii aan buuxiyey diiwaangelintii ay iga aqbaleen inay guddoonsiiyeen shahaadadii musharaxnimo ee aan ugu tartami lahaa qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka sidoo kale warqadayda istiqaalada si sharci ah u qoray ra'iisul wasaarahan ku socodsiiyey processkii loo baahnaa baan mariyay xafiiskiisa laga diiwaan geliyay guddigana way qabteen waana aqbaleen sidaas daradeed waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa in aan u taaganahay buuxinta xilkaas oo ah runtii xil aad iyo aad u culus muhiimna u ah qarannimada Soomaaliya muhiim u ah matalaadda shacabka Soomaaliyeed muhiim u ah hirgelinta iyo ilaalinta shuruucda dalka muhiim u ah hanaanka dawladnimo iyo aasaaska dhismaha qarannimada Soomaaliyeed oo sii kobcaysa muhiim u ah aniga oo ku kalsoon aqoontayda iyo waaya aragnimadayda aan u leeyahay howlaha ama shaqooyinka golaha shacabka ama waajibaadka golaha shacabka uu u hayo ummadda Soomaaliyeed aniga waxaan ahay xildhibaan baarlamaanka ka tirsan soona galay sanadii 2000 oo muxuu ahay weli aan ka bixin oo gudiyadiisa kala duwan ka shaqeeyay golaha xukuumadda muddo 10 sanadood ka badan ka shaqeeyay oo baarlamaanka howlihiisa khibrad badan u leh maanta waxa weeye 18 sanadood iyo wax la jira ayaan ku jiraa golaha shacabka intaas howlo yar ma ahayn khibrad yar ma ahayn muddo kooban oo yarna ma aha
anigu maalintaas waxaan jiray inta u dhaxaysa 27 iyo 28 sano ayaan jiray maantana waxaan jiraa inta u dhaxaysa 45 jir iyo 46 jir baan u dhaxeeyaa waa da'da muxuu ahay mas'uuliyadda ugu adag oo ugu muhiimsan lagu aamino qofka ruuxa bani aadanka ah waa da'da risaala nubuwa ilaahi subxaanahu wa tacaala rasuulidiis uu ugu dhiibi jiray da'da u dhaxaysa meelahaas khibrad iyo waayo aragnimo aan u leeyahay baarlamaanka waxaa ii dheer aqoon aan u leeyahay howlaha baarlamaanka laftigooda iyo howlaha siyaasadda anigu waxaan haystaa darajadeeda waxbarasho waa masters degree oo aan ka haysto University of Roehampton jaamacad London ku taala oo Roehampton la yiraahdo waxaan ka baxay jaamacadda University of Nairobi ayaan ka baxay bachelor's degree-gayga taas weeye takhasuskayna waa political science iyo wax badan anigu waxaan ahay nin muxuu ahaa macallin ah oo muxuu ummadda Soomaaliyeed intaan siyaasaddu ku soo biirin iskuul weyn maamulayay oo baydhabo ku lahaa oo isaga aasaasay oo ilaa haddana iskuulkii farqihiisa ay shaqeeyaan wax badan oo bulshada u qabtay intaan xildhibaan ahaa intaan wasiir ahaa intaan macallin ahaa inta aan ku dhex jiray howlaha ummadda Soomaaliyeed loogu adeegayo khibrad badan iyo waayo aragnimo badan iyo muxuu ahay wax badan oo ummadda Soomaaliyeed dan u ah ayaan ka shaqeeyay waayo aragnimona waan ka kasbaday baarlamaankeena Soomaaliyeed maanta marxaladda uu marayo waa marxalad muxuu ah runtii aad iyo aad loogu hanweyn yahay inuu wax badan ku soo kordhiyo geedi socodka dhismaha qarannimada Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliyeed waa tiirka asaaska u ah dhismaha dawladnimada hay'adaha dawladda waa hay'adda hooyo u ah waa hay'adda tusaale u ah waa hay'adda la xisaabtanta toosisa waa hay'adda lagaga daydo kuna ilaalisa hay'adaha kale shaqooyinka qaranka loo qabanayo ama ummadda loogu adeegayo baarlamaanka marka inuu caafimaad qabo inuu muxuu ahaa horumar gaaro inuu awood leeyahay xildhibaanada in muxuu ahaa ay u leeyihiin awood iyo karaamadooda iyo xasaanadooda iyo sharaftooda ay muxuu ahaa huwan yihiin oo ummadda Soomaaliyeed u dhiibatay mid muujinaya inuu yahay baarlamaan ka madax banaan hay'adaha dawladda qiibahooda kale si ay isku dheelitiraan awoodaha maxaa yeelay systemka isdheelitirka awoodaha waa lagama maarmaan waana muhiim wuxuu u yahay system of checks and balances ba afka qalaad lagu yiraahdaa waa system aad iyo aad muhiim ah waxaana xaqiijiya baarlamaanka golaha shacabka ayaa xaqiijiya baarlamaanka Soomaaliyeed wuxuu wada shaqayn la leeyahay hay'adaha dawladda dhamaantood wada shaqayn caafimaad qabta haday tahay golaha xukuumadda haday tahay madaxtooyada haday tahay garsoorka iyo hadii uu yahay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliyeed wuxuuna matalaa shacabka Soomaaliyeed waana ku kalsoon yihiin waana ku qanacsan yihiin eegis bayna ku hayaan ishay ku hayaan sida baarlamaanku u dhaqmayo baarlamaanka Soomaaliyeed ma laha mucaarad iyo muxaafad ma laha baarlamaanka Soomaaliyeed waa mid waa hal xabo waa golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliyeed xildhibaankuna ra'yigiisa waxa waaye isagoo oo ilaalinaya sharciga dastuurka iyo xeeroosaadka iyo shuruucda dalka u degsan isagoo ilaalinaya xor buu u yahay fikirkiisa fikirkooda oo ay ku kala gedisan yihiin waxay ku kala baxayaan si dimuqraadi ah dhexdhexaadnimo ah oo nidaam ah oo dadkuna ay ku qanci karaan in arrinta loo maamulay si waafaqsan sharciga dalka u degsan iyo dib u dhiska qarannimada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed matalaad la matalayo wax u dhigma inay yihiin marka taas ayaan muxuu ahaa go'aansaday inaanan xilligan ka aamusi karin maadaama aan muddadaas ku jiray muddada intaas khibrad aan u leeyahay aan u jeedno marxaladda aan marayna maanta halka aan taagannahay inay u baahan tahay in muxuu ahay loo istaago ay u baahan tahay iyada oo xildhibaanada iyo muxuu ahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed la iskaashanayo hay'adaha oo dhan ay iskaashanayaan aniga marka waxaan diyaar u ahay inaan marxaladdan naga gudbiyo oo aan muxuu ahay u noqdo baarlamaanka mid u dhaxeeya oo moderator ah oo waxay u baahan yihiin oo waajibaada oo saaran si sharaf leh ay u gutaan iyaga oo xuquuqda ay leeyihiin oo waajibaadkaas ku gudanayaanna ay tahay mid lagama maarmaana oo muqaddas ah in
ay muxuu ahay kaga maarmaan hay-adaha kale aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay daawadayaal kaana wuxuu ahaa musharax xildhibaan ibraahim isxaaq yarow oo maanta isku soo taagay qabashada xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya wuxuu iska casilay xilka wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo hore u hayay maadaama guddiga qabanqaabada doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ay soo rogeen sharci ah in wasiir ka tirsan xukuumadda haddii isku soo sharaxayo qabashada xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya marka hore uu iska casilay xilka wasiirnimo musharax ibraahim isxaaq yarow ayaana sidaa daawanaysanba ka warbixiyay sababaha ku dhaliyay inuu isku soo taago xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya wasiiro dhowr ah oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa kol hore isku soo sharaxay xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya guddiga qabanqaabada doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa 30 bishan Abriil waxay ku dhawaaqeen inay tahay maalinta la qabanayo doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya maalinta berita oo 24 bisha Abriil ku beegan ayay ku eg tahay isdiiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya kursiga gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale 25 iyo 26 bishan ay musharaxiinta soo codsada inay u tartamaan doorashada gudoomiyaha baarlamaanka waxay hortagi doonaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyagoo halka ka jeedin doona khudbadooda ku aadan qorshayaasha ay higsanayaan kadib marka tartankay ku guuleystaan sidoo kale 27 ilaa 29 bishan oo 3 cisho ah ay guddigu isku diyaarin doonaan isku xog wareysiga diyaar garowga ugu dambeeyay qabashada doorashada 30 bishana waxa qabsoomi doonta doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya 12 bishan Abriil ay ahayd markii gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari xilkaas uu iska casilay kadib cadaadis xoogan oo kaga yimid xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo mooshinka keenay gudoomiye Jawaari ayaa baarlamaankii 9aad gudoomiye ka halka baarlamaankan 10aadna muddo hal sano ah uu hogaaminayay wayna arki doonaa sheekooyinka la xiriira doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya laakiin dhanka kale maalmihii u dambeeyay sida aad ka wareyseen waxaa meel xun marayay xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo waliba dawladda Imaaraadka Carabta Imaaraadka ayaa kamid ah wadamada xiriirka qotada dheer la lahaa Soomaaliya dhinacyo badan ka taageeray laakiin xiriirka Soomaaliya Imaaraadka ayaa waayahan dambe xumaaday heshiiskii shirkadda laga leeyahay Imaaraadka Carabta ee DP World ee dekada Berbera ayaana kamid ahayd waxyaabaha si xumeeyay xiriirka labada dal haddaba xildhibaan Maxamed Xasan Idris Ganay wuxuu kamid yahay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanku wuxuu qayb ka yahay guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya shalay gelinkii dambe ayuu stuudiyaha nagu soo boqday waxaan wax ka weydiiyay waxa uu ka og yahay xiriirka Soomaaliya Imaaraadka maadaama uu ka tirsan yahay guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka guddigaas oo u qaabilsan baarlamaanka Soomaaliya la xisaabtanka iyo la shaqeynta wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya xildhibaanka marka ugu horeysa waxa aan weydiiyay waxa uu ka og yahay xiriirka si xumaanaya Imaaraadka iyo Soomaaliya ma santa walaalkiis horta wax yar waxaan jeclaan lahaa dadka media laftiina adinka ugu horeysaan in aan laga dhigin arrimo annaga Imaaraad dad walaalaha nahay arrimaha iskuma haysana dad cadow iskuma banhim wax yar waxa laga yaabaa aragti siyaasadeed in yar inaan ku kala duwanahay intaasna waxaan rajaynaynaa in la xaliyaba oo manihin dad cadaawad intaas leeg isku qaba dad walaalaha waa Imaaraadka walaalaheena ah laakiin aragtida siyaasadeed oo hadda taagan ayaa laga yaabaa inaan isku sii arkin siyaabihii hore oo systemkii hore dawladihii hore oo soo maray lagula dhaqmi jirayna dawladdan hadda jirta qaybaheeda kala duwan baarlamaanka aniga aan ka tirsanahay xukuumadda intaba waxay aad uga biyadiideen qaabkaas in loola dhaqmo oo ah madax banaanida dalka shaki gelinaysa waddan kasta wuxuu leeyahay madax banaani asaga iyo go'aan asaga u gaara awoodda military kuma salaysana awoodda dhaqaalena kuma salaysana jasiiradda Madagascar iyo United States isku darajay ka yihiin adduunyada marka laga hadlayo mandate-ka muhiim ah waddan weeye Madagascar Mareykan waddan weeye Soomaaliya waddan weeye Imaaraadna waddan weeye annagoo laba waddan inaan is xurmayno taasay annaga su'aasheena ka timid taasna qofna looga heebisan maayo qofka diida madax banaanida Soomaaliya aan isnayn annagu kala xaalad Imaaraadka ma diidin marka madax banaanida Soomaalida faragelinay nagu sameeyeen ana habooneyn anaga laftigeeda aan ku sameyn lahayn
هذا فرقلين النوع عصو كليتا وح عالم كشروع وذاتك كالريبة شروع دي عالم كأنا جنا إلهي هذا التي سنة حمان كلنا ما قبل وش الشرع وعالم كنوع قوله كليها مرة bilowgii hadalkaaga waxay tiri imaaraadku waxaynu nahay dad walaalo ah haddana waxaad leedahay fargelinayaan ugu hayaan walaalkaaga ku fargelinaya maxay tahay walaalnimada dhowrayso haddii isaga walaalnimadaada uu ilaalin waayo ما walaalnimada ma goynayso in qofku uu waqti wax xasarad ku jiro si kala kul dhaq walaalnimada ma goynayso waxa laga yaabaa inay jidka ka noqotay laakiin inaan dad wadan arbeed oo walaalo aan nahay taas su'aal kama taag waa gartay laakiin xaq aan leenahay macnaheedu ma doodsinayso walaalnimadeeda qofka hadduu garan waayo waa loo sheegay xumaanna ma waa gartay maxaa fargelin oo kuu muuqda adiga dalkii ku sameeyay waxaa noo muuqda in shirkad imaaraadka laga leeyahay si qayaxan Soomaaliya meel kamid ah deegaano kamid ah dalkan Soomaaliya ay intay qalabyo keensatay shaqo ka bilowday si ay sheegeen waliba sheegteen inay Soomaaliya hoos imaaneen Soomaaliya waxba uga heebisaneen dawladda Soomaaliya DP World haddaan si jilcino DP World wala jeedna aadiyaan shirkadaas ma ahayn company private asaan u arkay waa company dawladda Imaaraadka ay qayb ku leedahay hadayna wada lahayn ay qayb weyn ku leedahay واسكو دايني إن دولة الإمارات كسي لقلاها hadlo arrintaasi in ay wax ka bedelaan waayo anaga laftigeega Abu Dubai intaan tagna ma dhihi karno anaga iskale wax ma sheegan karno hadiya same waxa la mid ah Hargeysa ma sheegan karaan ayaga waxa lagu sheegan karaa kaliya heshiis dawladda Soomaaliya ay gashay tii way socon weysay marka waxay noqotay inaan kor u hadalno ma habboonayn marka inaan meeshaas la gaarno laakiin haddii si hoos aan u xalin weynay inaan kor u hadalnay noqotay xaqaan u leenahay waa gartay imaaraadka guddiga arrimaha dibadda ayaad ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda dabcan shaqadan waa wasaaradda ugu badan iyada iska lahayd maxaa ka og tahay tilaabooyin oo wasaaraddu ay qaata ah in xiriirka imaaraadka iyo Soomaaliya la wanaajiyo ah ma jiraan wali wax wasiirka arrimaha dibadda shalay ugu dambeysay oo saxaafadda la hadlayay dabcan waa la socotay laftigaaga meel badan oo ku jirtaan marnaba ma aaminsana asaga in Soomaaliya ay jid qaldan ku socoto sida anaga aaminsanahay Soomaaliya waxay xaq u leedahay ilaahay hadda ku taagan tahay oo ah territorial integrity waxa la jiritaanka wadan aan leenahay soodinteena inaan anaga u madax banaanahay oo dawladda rabta inay la macaamisho meel kamid ah qayb Soomaaliyana ay kala macaamisho dawladda Soomaaliya qofna looga heebisanayn aanan ahayn mid laga galban karo taasuna ku taagnaa waana mid aan ku taageersanahay meelo badan way soo martaa laga yaabaa waxaan rajaynaynaa in intaas ay laftigoodu markaan ay kusoo koobaan oo ay xaqiiqsadaan in Soomaaliya aanan ahayn dal meel wixii loo sheegay qaadanaya dal dawlad taagan ah oo imaaraadka la mid ah inay muujiso inay tahay wasaaradda arrimaha dibadda ma kula xisaabtanteen wali ma sameeyay isku day ah in wada hadal lagu dhameeyo arrintani waxaan dhex taagan oo wada hadal aan ka gali karno ma jiro Soomaaliya jiritaanka Soomaaliya wada hadal lagama gali karo wasaaradda arrimaha dibadda saas ay u taagan tahay marka qofka diida marka jiritaanka Soomaaliya oo leh qayb kamid ah Soomaaliya dawladda Soomaaliya kala macaamili mayno uma naqaanaba wax kale oo aan ka wada hadli karnaa ma jirto ay go'aan nooc laga qaadan karaa qofkaas markii maadaama wada hadal meesha uusan aalin procedure la jiro meesha xabad isku ma haysto ayaga laftigoodana xabad nooma haystaan annagana meel xabad uga kicinayna laakiin wada hadal ma jira dhaaso wada hadal kale ma jiri karo laakiin wanaag dawladda wanaag wuxuu ka imaanayaa is-xurmayntu ka imaanayaa is-xurmayntana waxay ku xiran tahay qofka sheegta in qayb kamid ah miiskan adinka malihidin ida dhaha isaga marka laga rabaa inuu mar dambe soo laabto dhahmaya miiskan adinka iska la raali aad marka imaaraadka ayaga lagu dhul sugay inay soo laabtaan ana wax kale oo naga maqan xumaan oo ma qabno xiriir aan ka goynaa ma lahan irid aan ka xirnayna ma lahan oo dad walaalahayna ilaa hadda safaaradooda meesha joogta xariirihii dadkii ciidamada ay noo tababareen waa ku mahadsan yihiin maanta si dhamaystiran ay usoo wareejiyeen oo dawladda Soomaaliya kusoo wareejiyeen intay noo qabteen waa ku mahadsan yihiin waa dad walaalaheena waa wixii aan u samayn lahayn waqti ayagoo waqti adag ku jiro maanta anaga waqti adag ku jirna intay noo sameeyeen waa ku mahadsan yihiin waa tahay marka dawladda Soomaaliya laga taga dalka dawlad goboleedyada ayaa dabcan ka jira dawlad goboleedyada qaar arrintani ka hadlay waxay sheegeen imaaraadka in xiriirkeenan u jiri karin sida Puntland madaxweynahoodu waa u hadlay Soomaaliya isbarbaryaca dalkiina ka jiro maadaama dawlad goboleedyadana ay leeyihiin anaga imaaraadka xiriirka uma jirayno dawladdii Soomaaliya go'aan ay qaadatay horta moogtahay qorraxda taagan horta hal gacan shacabka kuma dabooli kartid
أيه dowlad goboleedyada shaqooyin ay leeyihiin jirta أيه waxa waaye qof walba wuxuu leeyahay xad أنقرته xadka hadaad garanayn oo adiga aad rabtid ay kartid waxa rabtid waa sheegi kartaa waxa waaye freedom of expression jiro waa hadli kartaa laakiin macnaheedu ma ahan inay wax ka hergelayaan maamul goboleedka kama hadli karo wax territorial integrity ku saabsan dowladda Soomaaliya go'aankeeda iska leh baarlamaanka aan dhaqan gelintiisa iska leh laakiin hadda way ka hadleen Soomaaliya ma uu ka hadli karaa qofka afkiisa ma qabanayna anaga wuxuu raba aragtiisa uu sheegi karaa laakiin macnaheedu ma ahan in wax bedelayso laakiin Soomaaliya maadaama sharci uusan siinayn haddana uu ku hadlay every action have same reaction way maadaama wax sharci uu u ogolaan uu sameeyay laftirkiisa qalad uu galay oo in la xisaabto mudnaa Soomaa ma taas xisaabta noocaas ma sameeyno anagu qofka hadduu hadlay asaga hadlay maamul goboleedku wuxuu leeyahay baarlamaan uu leeyahay Cabdiweli darajo lagu xisaabtama jirta Cabdiweli intii dowladda federaalka ka hadashay ninkaas asaas sheegay mise qof kale asaas sheegay inuu u jawaab celisa aragti sax uma aragna anaga anaga golay shacabka anaga marka madaxda dowlad goboleedyada say doonaan u hadli karaan made kuma haboon say doonaan inay wadlaan kuma haboona sharaftiisina u habooneen qofka Soomaalinimadiisina u habooneen laakiin hadduu hadlo macnaheedu ma in loo soo xiray laakiin inta aadan dibadda siyaasadda arrimaha dibadda aadan hagaajin soo dowladda Soomaaliya laga marabin in madaxda dowlad goboleedyada marka hore xitaa gacan lagu qabto kala dambeyn si meesha u timaado Soomaaliya hal go'aan ay yeelato haddii dowladda federaalka ay go'aan qaadatay dowlad goboleedyadina go'aan kale ay qaataan imaaraadku soo halka faa'iido badan ugu soo baxayso oo inay la macaamilto dowlad goboleedyada walaa horta dowlad goboleedka waxay kamid tahay waxay igala hadlaysaa ilaahay hadda adiga guri furihiisa qof haysta qol gudaha kaalama hadli kara mogta furaha banaanka wuxuu yahay mogta muqaddas qofka furaha banaanka haya ayaa kuwan gudaha mas'uulka macnaheedu waxay ka dhigan tahay maamul goboleed gudaha ku jiraan qol kamid ah qolkan dowladda federaalkana irid laga soo galay ilaa iyo qaybaha iyada maamusha marka qolka qof ka soo hadlay wax macnaha sama bedelay wata ugu dambeyntii arintan imaaraadka dad badan oo Soomaaliyeed shaqo ugu jira dad waxay leeyihiin Soomaali badan ayaa ganacsi ku leh oo imaaraadka dal xiriirka loo jari kara ma ahan maanta oo kale waxay wareejiyeen ciidankii Soomaaliya u tababarayeen xiriirka Soomaaliya imaaraadka sida hadda muuqato ma mid jid qurxoon ku socda dadka Soomaaliyeed ee walwalka ku jira maxaa leedahay horta waa runta dad Soomaaliyeed oo badan baa Abu Dubai iyo Dubai meel qayb ganacsi badan ku leh waqti badan ku soo lahaa micnaheedu ma ganacsi sadaqa kuma haystaan meesha cashuur baa laga qaadaa dalkay wax soo galiyaan ayagana waxba laga faa'iido wax bay faa'iidaan waxa xaqiiqa haddii dowladda imaaraadka ay diido dalkeeda ka baxay tiraado baa ani miin inay ka baxaan macnaheeduna ma ahan ganacsi inuu xirmaayeen wadamo kale oo badan jiro oo ba laga yaabo inay nooga qiimo jaban tahayba Soomaaliya in wax la keeno wadamo kale oo ka dhawaa jiro anaguna waa isla ognahay imaaraadku ma taalo strategic ma uma ahan marka laga hadlayo ganacsiga adduunka jiirada ku jirta xataa marka laga hadlayo dekada meelo kale oo ka toosanaa jira laakiin macnaheedu ma hadda inaan meesha aado dowladda imaaraadka xaq ay u leedahay subaxdii inay tiraado qof walba Soomaaliya ka bax dalkan laakiin macnaheedu ma ganacsiga inuu xirmaayo meel kale u bedel karaan waa wax cad waa tahay daawadayaal kana wuxuu xildhibaan Maxamed Xasan Idris Maxamed Ganay oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya shalay geligii dambe ayuu nagu soo booqday xarunta TV-ga waxaana ka hadlay sida daawanaysa maarinta imaaraadka ee Soomaaliya xildhibaanku wuxuu ka tirsan yahay guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya qaybihii dambe ee barnaamijka wardoon ayuu isla soo gaarnay markansa wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka soo horjeesatay shir wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya soo qaban qaabisay wasaaradaha dowlad goboleedyada ay warfaafintan ay ka qayb galeen oo Muqdisho dhawaan lagu soo gabagabeeyay wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed shir jaraa'id ayuu Baydhabo ku qabtay waxa uu ka hadlayay waxyaabaha ay ku qaadaceen shirkaas iyo waxay ku dhaliilayaan wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta oo ay tahay 23 bisha afraad 2018 waxaan safar shaqo ooga soo laabanay magaalada Muqdisho ee xarunta ummadda Soomaaliyeed halkaas oo ay martiqaad aan ka helay 20kii bishan 2018 wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliyeed iyadoo si official ah u martiqaaday wasaaradaha warfaafinada dowlad goboleedyada dalka ka jira oo dhan iyo saxaafadda ka jirta dowlad goboleedyada iyo ururada bulshada intoodaba
waxaan rabnaa inaan war-saxaafadeedkan ummadda Soomaaliyeed iyo reer Koonfur Galbeed Soomaaliyaba aan ugu xaqiijino waxyaabihii aan kala soo kulannay markii aan tagnay magaalada Muqdisho shirkii loogu wacay iyo sida uu xaal noqday annagoo aragtideena hore u cabiray. waxaan martiqaad si toos ah uga helnay 20kii sano hore u sheegay bishan 2018 bisha afraad wasiirka ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ahna kusimaha wasiirka wasaaradda warfaafinta isagoo si official ah noogu soo diray email laguna martiqaaday shirka magaalada Muqdisho ka dhacay 21 ilaa 22 kaasoo ajandihiisuna ahaa badbaadinta suxufiga Soomaaliyeed annagoo ajiibayna invitationkii naloo soo diray ama martiqaadkii naloo soo diray waxaan isugu nimid magaalada Muqdisho wasiirada warfaafinta dowlad goboleedyada dalka ka jira sida Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle. hase yeeshee 21kii bisha markii aan isu diyaarinay inaan tagno goobtii uu shirka ka dhacayay oo aan islahayn aad bay u dhibanayd oo ma mudnayn in shirkaas lagu qabto oo ah meel xoogaa aad u malaysid in garitaankeeda iyo ka qaybgalka shirkaas uu ahaa mid aad ciriiri u ah. hase yeeshee markii uu shirku furmayay waxaa dabcan ajandooyinkii baa la qaybiyey ajandooyinkii markaan eegnayna waxaa inoo soo baxay in ajandooyinkii markii aan joognay deegaanada goobaheena shaqo ama dowlad goboleedyada aan joognay aanan ahayn ajandihii naloo soo diray mid ka duwan baan halkaas ugu nimid kaasoo aan u aragnay inuusan sideedaba anfac u lahayn warbaahinta Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada wasaaradahooda warfaafinta ee dalka ka jira. waxyaabaha aan meeshaas ku aragnay waxay ahaayeen in la weeciyey la marin habaabiyey ajandihii intii aanan ka safrin deegaanadii aan ku sugnayn ajandihii naloo soo diray oo keliya ahaa hal ajanda oo ahaa badbaadada suxufiga Soomaaliyeed oo micnaheedu yahay suxufiga Soomaaliyeed duruufaha iyo dhibaatooyinka uu ku shaqaynayo sidii uu u heli lahaa safety wanaagsan iyo amni wanaagsan iyo sidii looga warqabi lahaa suxufiga Soomaaliyeed. hase yeeshee wasaaradda warfaafinta oo liidgareynaysay shirka waxay ku soo dareen ajandooyin annagu aan ku tashanin warbaahinta dowlad goboleedyada dalka ka jirtana aan lala wadaagin wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyadana aan lala wadaagin waana aragnay shirkaas inuu ahaa shir wax lagu afduubayo oo la rabo directionka iyo habsami u socodka warbaahinta Soomaaliyeed hadday tahay heer federaal iyo hadday tahay heer dowlad goboleed intaba in lagu marin habaabinayay. annagu isteediyaan matala waxaan ku shaqaynaynaa policyga wasaaradaha warfaafinta u dejiyeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ka jira annagoo taa ka jawaabayno waxaan u aragnay in aysan dan ugu jirin warbaahinta Soomaaliyeed guud ahaanba iyo warbaahinada ka jira dowlad goboleedyada dalka. waxaan u aragnay shirkaasi inuu ahaa shir aad u malaysid in la afduubay markaad ka bilowdid meesha lagu qabanayay shirkaas oo aysan suxufiyiinta Soomaaliyeed guud ahaanba aysan suurtagal u ahayn inay yimaadaan maadaama ay ahaayeen waxa laga hadlayo arrimahooda suxufiga Soomaaliyeedna hadduu yahay dawli iyo hadduu yahay mid madax bannaan intaba wuxuu xaq u leeyahay halka looga hadlayo aayaha saxaafadda Soomaaliyeed iyo suxufiga Soomaaliyeed intaba inay wada joogaan. waxaan halkaa ku aragnay inuu afduuban yahay shirka oo uu afduuban yahay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo hay-ado aan u aragnay inay support garaynayaan oo afduubkaas ay samaynayaan wasaaradda warfaafinta ay iyaguna qayb ka yihiin oo ay garab ku siinayaan. waxyaabaha la yaabka lahaa oo meesha aan markii aan nimid aan ku aragnay waxaa ka mid ahaa innagii si official ah naloo martiqaaday in la yidhi shirkan waxba kuma lehidin oo door ah waxaad ahaaneysaan duljoogayaal ama goobjoogayaal oo dhagaystayaal ah annagoo u aragnay taasu inaysan qabalaynin maamulada dalka ka jira iyo ka wasiir ahaan iyo ka wasaarad ahaanba iyo uradeenna saxaafadda ee deegaanadeena ka jira intaba. waxaa kaloo u aragnay inuu yahay mashruuc ay rabaan ragga dhalinyarada ah ee jooga wasaaradda warfaafinta maadaama aan ognahay wasaaraddu inaanay wasiir lahayn marka laga reebo wasiir ku-xigeenka wasaaradda oo ah kusimaha wasiirka oo aan ognahay inta badan inuu shaqo wanaagsan hayo laakiin ay marin habaabiyeen dhalinyarada uga hooseyso shaqada ee wasaaraddu joogto oo raba inta wasaaraddu ay kala dhacsan tahay oo ay wasiir la-aanta tahay in ay magaca saxaafadda Soomaaliyeed ay ku cunaan waxyaabo aan loo joogin iyagoo aan tixgelinaynin marnaba saxaafadda Soomaaliyeed sidoo kalena iyagoo kala qaybiyey saxaafadda Soomaaliyeed oo qaarna u arka kuwa ay ku shaqaysan karaan qaarkoodna bannaanka ku faquuqayay inay kasoo qayb galaan. annagu haddaan nahay wasiirada warfaafinta dowlad goboleedyada dalka ka jira horey aan u qaadacnay maantana waxaan ku sugannahay deegaanadii waxaan ku laabanay oo dib ugu laabanay deegaanadii aan ka nimid waxaan rajaynayaa wasiiradu kulligoodba markay deegaankooda ku laabtaan inay hadli doonaan
waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed iyo warbaahinta soomaaliyeed guud ahaanba iyo warbaahinta isteedyada intaba aan u sheegno shirkii ka dhacay magaalada muqdisho 21 ilaa 20 inuusan ahayn shir suxufiga soomaaliyeed lagu badbaadinayo amnigiisa iyo safetygiisa laakiin wuxuu ahaa shir la rabay in magaca ummadda soomaaliyeed ama warbaahinta soomaaliyeed in lagu afduubo waxyaabaha iyaga ay rabaan oo mashruuca ay rabaan inay ku boobaan dad khaas oo ay rabaan inay ajandooyinka ayaga ay wataan ay mariyaan baan halkaas ugu tagnay taa annaguna waa diidnay annaga iyo wufuudayadii inala socotay oo gobolada ka socoto qaybaha kala duwanaa lahaa oo warbaahinta dowlad goboleedyada iyo warbaahinta madax bannaan iyo sidoo kale ururada bulshada intaba dib baan usoo laabanay waxaan u sheegaynaa marka hay-adaha sida guud u taageera warbaahinta soomaaliyeed kaalmada siiya oo malaayiinta dollar sanad walba ku bixiya in waxa meesha ka dhacay iyo wasaaradda warfaafinta qaab dhaqankeedu uusan wanaagsaneyn annagoo og 10kii bishan inaan isugu tagnay magaalada Garowe ee xarunta Puntland halkaasna heshiisyo wada shaqeyn wanaagsan ku soo galay annagoo dareemaynay markaas inaysan raalli ku ahayn sida ay wax u socdeen iyagoo taa ka jawaabaya waxay sameynayaan afduubaan saxaafadda Soomaaliyeed iyo wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedyada dalka ka jira hay-adaha taageera oo ognahay iyo dowladda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in aanan qayb ka ahayn in aanan shirkaas qaybna ka horena waan u sheegnay baaqna waa ka soo jeedinay wax la wixii ka soo baxay in aanan aqbalayn horaan u sheegnay haddana inaanan aqbalayn waxaan rabnaa inaan halkaan ka cadayno guud ahaanba sidaa daraaddeed hay-adaha caawiya miidiyaha Soomaaliyeed oo ognahay in malaayiin dollar ku bixiyaan waxaan leenahay ka fiirsada waxyaabaha aad qabanaysaan waxaa ummadda Soomaaliyeed magaceeda lagu helayo inaad ogaataan inay saxufiyiinta Soomaaliyeed kan lagu yacdo joogo iyo kan joogo raaskan booni joogo inay wada helayaan hadday tahay tababarada hadday tahay aqoon kororsiga iyo hadday tahay وتهي داوديال كان وحوا وزيركا ورفافينتا دولة قبلتكا كوفر قلبت سوماليا وسيدا داونيسين با كور بحيني شير مقدشو دوان وقيب قلين وزاردها ورفافينتا دولة قبلتيدا ينسوقا وانقابسي وزاردها ورفافينتا حكومة سوماليا وزير ورفافينتا كوفر قلبت يانا شركا كور يميد وحونا كويدي وزاردها ورفافينتا سوماليا إن أجندياشي مركوري لو يري أجنديال أنا حينين shirka looga hadlayay sidoo kalena aanan wax door ah laga siinin gunaanadkii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay maamulka gobolka Banaadirna maanta howlo nadaafadeed ay ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ayaa ka qayb galay howlo nadaafadeed oo laga sameeyay qaybo ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka oo warbaahinta kula hadlay goobta ayaana sheegay in maamulkiisa ay muhiimada koowaad siinayaan soo celinta bilicda iyo nadaafadda magaalada caasimadda ee Muqdisho oo mar ahayd caasimadii bilicda iyo doogsiga Afrika inkastoo burburkii dalka ka dhacay saameyn badan oo ku yeeshay guud ahaan maanta intaas ayaan ku soo gunaanadayaa barnaamijka Wardoon ee TV-ga Somali Cable waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada soo saarista gacanta ka geystay farsamada iyo kaamirada barnaamijka waxaa kaagaya Cabdiraxiin Xuseen Ceelaawe waxaan la socodsiinay anigu Cabdullaahi Axmed Catoosh intaan ku kulmi doono barnaamijkan lacayna cimri caafimaad